in ku dhow 20 askari oo ka tirsan ciidanka Ahlusunna wal Jamaaca iyo hubkii ay wateen ayaa isu soo dhibay ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug waxaana lagu soo bandhigay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. saraakiil kamid ah saraakiisha soo dhaweeyay ayaa sheegay in xogta raggan ay hayeen tan iyo markii ay ka soo baxayeen deegaanka Bohol ee hore ugu sugnaayeen isla markaana ay soo dhaweynayaan cid kasta oo wali rabta inay ka baxdo ama ay ka laabato go'aankii ay uga soo horjeesteen dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug. halkaana ay yimaadeen nala soo xiriiraan hay'adaha amniga u yimaadeen yiraahdaan waxa weeye meeshaas waa nala ku qayaamay waa nala siray waxaan rabnaa in maaragtay dawladana nala ku daro wax la wixii aan geysanana la kacfiyo. waad u jeedaan ayaga iyo hubkoodii way isaga soo baxeen inta hadda meesha ku hartay oo ku dhibaataysanna waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay maaragtay uga soo baxaan oo iskaga soo tagaan meeshaas. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baqa ilaahay ka cabsada dhalinyarada ha marin habaabinina intay leeyihiin waad u jeedaan xabad baad geliseen waxaad ugu dhiibteen qoryaad waaridkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ugu dhiibteen inay ku laayaan. laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa maadaas iska leh fahansiiyey in maaragtay aysan waxa samayn oo ka waantoobaan. alxamdulillaah ilaahay baa maadaas iska leh waxa weeye waa marin habaabin dhalinyarada oo la marin habaabiyaa waa nooc kamida argagixisnimada. waxaad ogtihiin shabaab aan ognahay al-shabaab in ay maaragtay ay marin habaabiyeen dhalinyarta oo waxaan jirin u sheegeen oo ka dhaadhiciyeen dheheen waxa weeye hadaf iyo diin iyo waxa lagu gaaraa maaragtay islaamnimo in dadka muslimiinta la laayo dawladda in laga hor yimaado lala dagaalamo la samcad dareeyo wadanka ina dalkiina iyo dadkiina aad wax ka difaacataan dawladnimadan aad ka rabsiidaan sida aad u karateen waan kaga mahadcelinayna. waa fikrad fiican oo aad ku fikirteen xaqiiqdeena si qurux badan oo wanaagsan oo sidaan ka qurux badanna waa la idin maamuusi doonaa. qarankana waxa waaye qaybaad ka noqon doontaan hadii alla idmo waan la idin sharfi doonaa insha Allah. sababtay tahay nin dhalinyaro ah inta fikiray go'aan qaatay oo meeshaan inaysan munaasab ahayn inta arkay dadkiisii iyo deegaankiisii inuu soo aaday go'aanna ku qaatay inuu difaaco waa ninka loo baahan yahay. waxaan la rabaa go'aankaas aad qaadatay inuu geesinimada leh oo dadkiinu in ka sugayay deegaankiinu in kugu rabay maaragtay inaad ku difaacataan in kaga rabay wala in kaga mahadcelinayaa waana mid maaragtay loo baahan yahay inaad ku adkaysataan la rabaa tii alla idmo oo aad go'aan aad qaadateen oo noqdo dawladuna waa idin aaminaysaa hadii alla idmo waan la idin soo dhaweynayaa insha Allah. nin kasto dhalinyaro oo yimaado mid oo ku qanco oo maaragtay oo ku maaragtay u fahmo meeshaan inay maaragtay meel laga rabo dadkiisa ay tahay maaragtay alla idin samayn doonaa hadii alla idmo oo qurux badan oo ragka tambana ayaguna ay ogaadaan in dawladdu dadka ay maaragtay dawlad u tahay oo dadkeeda iyo deegaankeeda iyo intaba dawlad u tahay. dhalinyaradooda meesha joogtana ay rabaan inay si nabad ah mid walba ku soo dhaweeyaan. tiro dhowr jeer oo hore sidaan oo kale waxa isku soo dhiibay dagaalyahano ka tirsan maamulka Ahlusunna wal Jamaaca iyadoo oo maamulka Galmudugna ay soo dhaweeyeen. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.